Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Wacan oo wanaagsan daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeennii sirta nolosha. Barnaamijka waxaynu ku soo qaadan doonaa caqabadaha dadka naafada ahi ay kala kulmaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa haddii Allah awoodda la ogolaado anigoo ah Maxamed Siciid Cali Maxamed Turki. waxaanad kala socotaan barta aan YouTube-ka ku leeyahay ee Maxamed Turki Channel. Inta aynaan barnaamijka gudagelin, fadlan subscribe saar, like iyo share-na ku qabo lana wadaag asxaabtaada. Haddii aan soo qaato xubintaasi ugu horeysa, naafadu waxa ay ka mid tahay dadka ugu nugul bulshada, waxaana loo baahan yahay in xaqooda la siiyo isla markaasina la garwaaqsado xaqa ay leeyihiin. Bulshaduna aanay dhayalsanin oo ay markaasi ay qof walba uu xil gooniya uu iska saaro. Dadka naafada ahi waxa ay dalka ku leeyihiin xuquuq fara badan, waxaana uu qof kasta oo naafa ahiba dowlad kasta uu ka tirsan yahay dastuurkiisu u ogolaanayaa in dadka naafada ahi ay la mid yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan, waxaana markaasi loo baahan yahay in xaqa ay leeyihiin iyo weliba xuquuqdooda la siiyo, sida xuquuqda waxbarasho, xuquuqda ay markaasi ay u leeyihiin inay ka qayb galaan maamulka iyo ay ka talinta dalka, iyo weliba markaasi xaqa ay leeyihiin ee dhinaca shaqo iyo weliba la noolaanshaha bulshada qaybahooda kala duwan. Dunidani aynu ku noolahay, Rabbi waxa uu markaasi u abuuray in lagu imtixaamo aadamaha, isla markaasina la eego dadku waxyaabaha ay ka shaqaystaan dunida si loogu dhammaystiro acmaashooda maalinta qiyaame. Waxaana loo baahan yahay in aad markaasi aad taageerto bulshada nugul iyo weliba dadka naafada ah intaba. Rabbi uma waayin qofka naafada ah ee lixaadkiisu kala dhantaalan yahay inuu siiyo lixaad dhammaystiran, balse waxaa lagu eegayaa qofka lixaadkiisu aanu dhammayska tirnayn, qofka isagu lixaadka qaba, bal in uu markaasi u muujiyo naxariis iyo inuu markaasi kula dhaqmo takoor amaba se dhibaato. Haddii aad caawiso qof naafa amaba se aad u samafasho, waxaa hubaala inaad heli doonto wanaag iyo naxariis ka timi Rabbi awood badan, isla markaasina abuuray koomkani aynu ku noolahay. Haddii aad markaasi aad dhibaato iyo hadimo aad kula kacdo qof naafa amaba se aad ugu awood sheegato lixaadkaaga dhammayska tiran, waxaa hubaala inuu Rabbi kaa kor qaadi karo adiga lixaadkani aad ugu faantay, isla markaasina uu isaga uu siin karo caafimaad iyo weliba lixaad dhammaystiran, adigana uu kaa dhigi karo qof naafa. Waayo Soomaalidu waxa ay tidhaahdaa naafanimada iyo xabaalahaba waa lagu soo biiraa. Markaasi waxaa loo baahan yahay in aynu garwaaqsano xuquuqda ay leeyihiin dadka naafada ahi, isla markaasina la tixgeliyo lagana dhigo mudnaanta koowaad iyaga. Naafada Somaliland amaba se naafada Soomaaliyeed waxa ay bulshada qaybaheeda kala duwan kala kulmaan dhibaatooyin badan, isla markaasina ma helaan xuquuq dhammaystiran oo waxbarasho iyo weliba xuquuqda shaqo iyo weliba xaqa ay ka talinta ay u leeyihiin in ay qabtaan maamul amaba se jago ka mid ah dowladda ay markaasi ay la nool yihiin iyo dalka ay ku nool yihiin intaba. Dalka ma laha oo keliya dadka lixaadkoodu uu dhammayska tiran yahay, balse dalka waa la wada leeyahay. Qof naafa iyo qof lixaadkiisu uu dhammaystiran yahayba markaasi waxaa loo baahan yahay in dadka naafada ah laga qayb geliyo xuquuqda uu dastuurku u ogolaanayo, in ay markaasi ay la simnaan bulshada qaybaheeda kala duwan, iyo inay markaasi ay maamul iyo weliba madaxtinimoba ay qaban karaan. Sidoo kale dadka naafada ah ee waxbartay amaba se markaasi ay u suurto gashay inay waxbartaan, kuwaasi oo wax ku soo bartay duruuf adag iyo weliba marxalado qalafsan, marka ay dhammaystaan waxbarashadooda isla markaasina ay tagaan goobaha dowladda iyo weliba xarumaha dadka ganacsatada ay leeyihiin, isla markaasina ay ka codsadaan inay marka ay ka helaan shaqo
iyo weliba codsigoodaasi markaasi ay ula yimaadaan inta badan lama tixgeliyo, isla markaasina ma helaan codsigaasi ay codsadeen in ay shaqo helaan, amaba se markaasi waxaasi ay usoo doonteen halkaasi, waxaanay kala kulmaan niyad jab iyo weliba mooraalkooda oo markaasi aada u xumaada. taasina waa nasiib darro in qaybaha kala duwan ee bulshada intooda badan aanay dadka naafada aanay siinin xuquuqdooda. sidoo kale dowladda lafteedu iyaduna waxa ay dusha u ridanaysaa inaanay dadka naafada ahi aanay helin xuquuqdii ay bulshadu ay lahaayeen oo kale, waayo inta badan ma helaan waxbarasho iyo weliba xuquuq shaqo iyo weliba xuquuqda ay leeyihiin oo dhan. haddiiba ay helaanna waa dhif iyo naadir, amase waa faraku-tiris. markaasi waxaa loo baahan yahay in dadka naafada la tixgeliyo, isla markaasina xaqooda la siiyo. qof walba xaqa uu leeyahay waa in markaasi la siiyaa, dadkan naafada ana laga dhigaa mudnaanta koobaad. waa tahay daawadayaal, intaasi ayaan kusoo gebagabeynayaa toddobaadkan barnaamijkeena. waxaynuna kusoo qaadan doonaa barnaamijyo badan oo aan ka diyaarin doono dadka naafada waxaana loo baahan yahay in barnaamijyadaasi la sheergareeyo, lalana wadaago guud ahaan bulshada oo dhan. intaaynu barnaamijkan dhigiisa ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.